gudbiyaa waxa weeye hooyo Soomaaliyeed oo la yiraahdo Bishaare Xuseen Cusmaan oo iyada oo ilmo 5 sano caloosheeda uu ku jiro ilmo kala dhalaysay markii qalliinka aan ku sameynay kadibna waxa ay sii dhashay 2 ilmood oo ka dambeeyay qalliinkaas markii lagu guuleystay markii uu horeysay hooyadu ii timiday Bishaare Xuseen Cusmaan markii ii timiday waxa aan weydiiyay intaanan ultrasound ama computerka aanan saarin waxaan weydiiyay dhowr su'aalood oo aad ii caawiyay khaasatan qofka bukaanka markuu ku yimaado waxa aad muhiim u ah inaad history aad ka qaado markii su'aalaha aan weydiiyay waxa kamid ahaa Bishaaro xanuunkan xilli ma dareentay xanuunkan waxaan dareemay ilmaha markay 8 bilood ay ku dhiman rabeen oo ilma caadi ah loo maleynay way noolayeen way dhaqaaq jireen markay nuxsiga gabeen oo meesha ciriir ay ku noqotay aan caajisay aan dhakhtar soo aaday see lagu qabtay oo xanuunsaday ilmihii dhaqaaqay gabeen markii dhakhtar aan soo aaday imise xarumood baa tagtay 5 maxay ku weydiiyeen su'aalo noocee ku weydiiyeen in computer ay saareen ilmaha 8 bilood ay ku dhinteen ay dhahay way dhinteen kadibna maxaa dareentay waxaan yiri ma la qali karo ma la saari karo nuuna inta loo qali maayo waxa la yiri ciidaha la siiyo ay guriga la geeyo markii ciidii la soo guriga la geeyna ay ilmihi ugu jiraan aad xilligan dhakhtar u soo noqon lahaaba uuraan qaaday wiilka da ilmahaas lagu qoray wiil uu weynaan dhalay wali wixii uu ku sii jiraan haddana waxaan is iri bal canuga haddana canuga iskuul ilmaha iskuul weyn 4 bilood markuu jeedan uuraan yeeshay kii labaad kii uu horeeyay wuxuu ahaa kan kugu dhex meeyday waa meeshii asoo ugu jiro uuraan yeeshay marka waxay iska dhahayeen warkii dhintay leeyahay waa dhintay bilash u dhahayn waa suuxsanaa iska dhaaf markaan dhashay caloosh waxba ku jiro haddana dhakhtar aaday inta canugan ka fariisanay su'aaliid waa laga reebay inta uu canugii fariisan 4 bilood jir uur kala yeeshay wiilan ku dhalay haddana kii inta uu sii fariisanay badan uur kala yeeshay wiil saddexaad aan ku dhalay wiilka saddexaad 4 bilood jiraan dhakhtar soo aaday markaan ku iimaanay wiilkii saddexaad 4 bilood jir bishii shanaad markaas u dhalan دور كذا أختاري دمبو أنت وحيد وحن برواية أختاري هذه وهوين مركي دم بعد الرشيد على كل ماي التركيز وفهموه ومركو صور أنا كذا الإيكاكين ولا فوي عديس أنتوا المهاسي على وش كتير إن سعيالة توصل ولا شيء سدح ويل أو سنة قلوين وحكلوا أن ويدي مركا أور أعقاده marnaba ma laga yaabaa inay calooshani hoos u degto waxay ugu tiri 5 sano ee u dambeysay lagama yaabo markaan uur yeesho saruunba u sii kacay laakiin weligeedba intaas iska tahay cudurkan waxa weeyaan waa cudur loo yaqaano fetus calcification baa la yiraahdaa ama calcified fetus baa la yiraahdaa waa ilmo caloosha ku dhagaxoobay oo caloosha dhexdeeda ayuu ku dhex jiraa laakiin minka uu ka baxsan yahay adduunyada 400 ee sano u dambeysay waxa laga helay ilaa iyo 300 oo qof adduunyada 400 ee sano u dambeysay waxyaabaha hooyadani ay soo koobsatay waxa kamid ahaa waxyaabo badan oo cudurradaasi ka duwan uurkan abdominal pregnant baa loo yaqaanaa abdominal pregnancy-gana waxa ay noqotaa 10kii kunba pregnancy-ga ama 11kii kun ee pregnancy-ga waxa laga helaa hal qof baa laga helaa hooyadan markii ay timiday waxaan saaray ultrasound ka markii aan saarayay waxa aan ku arkay ilma galeenku uu marnaa marka waxa badanka dadku dhowr hospital oo ay tagtay wax sax ah oo loo sheegay ma jirin laakiin markii aniga ay timiday waxaan arkay ilmaha bonuskii lafihiisii ayaan ku arkay ultrasound-ka markii ultrasound-ka aan saaray lafihii aan ku arkay ilma galeenkuna uu maran yahay waxaan ku yiri hooyo Bishaare Xuseen Cusmaan
xillimaad waxaan aad dareentay markaasay igu tiri 5 sano u dambaysayba cudurkan uu yahay oo marka aan iyada oo caloosha ku wada muxuu ahaayay ilmahaasi ayay 3 kale oo ciyaalana ay ku dhashay